السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا وناكسن داوديال ميل كستود عالم كي نجا داونيسان كسو دوادا channel كا عبد الرزاق شو وهذه جرالة دوغا براتين برنامج شو حيس له إسلام مركان يسوق جرا سياسة الرماها برشدة وعيقلينتا يقيبها كلا مركاسي لها الماما برنامج هذا آدي بعد ما هتنتين فلان هديتها مركي كوجو رئيسي أو channel كان صوب وغطو سبسكرايب دي جملال كنا فرو سياد ugu xirnaato barnaamijyada dambe isla markaana aad u noqoto daawadaha koowaad ee hadii jara la nasiib u yeeshay inuu daawado barnaamijyada channelka ka socda aad baa u mahadsantihiin intaa ka bacdi maanta waxaan jeclahay inaan ka hadlo muhiimadda ay leedahay hooyada Soomaaliyeed sharafta ay leedahay hooyada Soomaaliyeed ama gabadha Soomaaliyeed iyo maalmahan dambe sababaha keenay runtii in aad loogu xagxagto ama lagu soo bandhigo ceebahooda social media ayadoon markaasi loo abdayin ama markaasi aan laga fiirsan qiimaha ay gabadhu ama hooyada Soomaaliyeed ay leedahay runtii aad baad u mahadsantihiin inta badan dadka igala shaqeeya arrimaha bulshada iyo waliba wacyigelinta waxaan jeclahay markaa waxaan aragnaa walaalayaal inta badan markii aad social media ku dhex jirto waxaad la kulmaysaa gabar Soomaaliyeed oo ceebteeda lagu tilmaamayo social media dhexdeeda waxaad arkaysaa gabar Soomaaliyeed oo inta sawirkeeda la soo qaato la fadeexaynayo ama mid qaawan ha noqoto ama mid muxuu ahay asturan ha noqoto ama mid qurux badan ha noqoto ama mid sidoo Ilaahay doonaba u abuuray nuucay doontaba ha noqoto su'aasha meesha taagan marka waxa weeye ma naga geysaa gabadha Soomaaliyeed oo al-awalan Soomaali ah muslimad ah walaasheen ah hooyo Soomaaliyeed ah gabar Soomaaliyeed ah sharaftii ummadda Soomaaliyeed ah in ceebteeda banaanka la keeno ama loo sameeyo ceebo aysan ayadu lahayn dabcan su'aashaasi waa jawaab madoonto way caddahay waa khalad in hooyada Soomaaliyeed ceebteeda iyo foolxumadeeda iyo maxaan ku raahdaa inaheeda la soo bandhigo walaalayaal dhalinyarada maanta social media isticmaasha waa iga digniin waa iga waano waa iga wacyigelin magacaygu waa Cabdirasaaq Suuli Cali waxaan jeclahay inaan inta badan ka hadlo barnaamijyada qiimaha u leh ummadda Soomaaliyeed waliba waxaan jeclahay inaan waqtigeyga inta badan aan ku lumiyo arrimaha wacyigelinta ee markaasi aan isleeyahay kaalin muhiim ah ayay ka qaadanaysaa ummadda Soomaaliyeed anigoo jecel inaan naftayda iyo taadaba aan markaasi wacyigelin u sameeyo daahiriyo waxaan jeclahay hooyada Soomaaliyeed qiimaheeda maanta inaan ku baro hooyadu waa buduun al-ummahati waa makaanka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo nagu beeray annaga dhexdeena hooyadu waa midda kugu soo barbaarisay afka ama luqadda aad hadda ku hadlayso hooyadu waa midda kugu soo barbaarisay ama ku soo gardaadisay hooyadu waa midda ku soo sacad bartay marka aan ku leeyahay hooyadu waa nooca dhulka hooyo afka hooyo muxuu ahaayay wax walbaba hooyo yani ma sahlana hal hooyo kama soo qaadin gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan hooyooyinka Soomaaliyeed oo dhan ayaa hooyo ahaan inaan ku qiimeyno loo baahan yahay picture aad soo qaado sawir aad soo qaado xumaan aad ka sheegto kuwa aanan ku ogeyn xumaan social media activity ka ah wax qabadkooda la og yahay wanaag iyo khayr iyo samafal wanaagsan lagu sifeeyo ayaad marmarka qaar oo naqaanaad soo dhigaysaan social media idinkoo fadeexaynaya ama picture qaldan ku dhajinaya ama maxaan ku raahdaa tilmaamo aan markaasi ku wanaagsaneyn qof muslima in lagu tilmaamo aad ku tilmaameysaan haddaba marka daawade ama ninkan dhalinyarada ah isagu waxa sameynaya ee Facebook inta soo qaata dhigaya ceebtii gabar Soomaaliyeed walaal fiirso markaad gabar Soomaaliyeed ceebteeda meesha aad soo dhigto waxaad ilowday gabadhi ku dhashay qofka ku dhalaahay waa gabar Soomaaliyeed waa hooyo ta ku nuujisay waa hooyo midda ku soo barbaarisay waa hooyo habareertaa waa hooyo waa gabar ayda iyo eedada iyo muxuu ahaay dhammaan waa dumar weeye haddii marka aad tahay shakhsi ay qiimo la leeyihiin